bandhigga waxqabadka xukuumadda danqaran ee labadii sano ee la soo dhaafay run ahaantii wasaaraddu waxa ay shirka la tahay SNTV iyo warbaahinta oo mar kastaba soo tabiya waxyaabaha ay qabatiyo howlaheeda wasaaraddu waxa ay soo bandhigtay waxqabadkii labadii sano ee la soo dhaafay gaar ahaan heerka kororka ardayda dugsiyada wax ka barata sharciyada iyo nidaamyada la sameeyey barnaamijka loo yaqaano IMIS iyo barnaamijka loo yaqaano HIMIS oo labada ah habka loo aruuriyo xogta ardayda dugsiyada sare iyo dugsiyada asaasiga iyo ardayda heerka jaamacadeed waxaa kale oo ay soo bandhigtay manhajka qaranka oo ku daabacan afkeennii hooyo waxaa kale oo ay soo bandhigtay kororka ku yimaaday hababka imtixaanka iyo sida loo geli jiray iyo habka loo bixiyo shahaadada qaranka ee sanadka 12aad marka dee waa qayb yar oo ka mid ah waxqabadka wasaaradda waxa ayna ka muuqataa aqalka wasaaraddu ay ku dhex leedahay bandhigga waxqabadka wasiir inkastoo dadku ay og yihiin waxa aad qabatay oo aanu ku weydiinaynin haddana 2 sano ku buuxsantay xukuumaddana muddo ahaan 2 sano u dhiman sanadkan soo socda ka qabo maxaa laga filan karaa berrito oo bisha ay tahay 25 kii bishii 8aad 2024 waxaa 49 goobood oo dalka ka tirsan lagu qaadi doonaa imtixaanka lagu qaadanayo macallimiinta 3000 ee cusub wax ka dhigi doonta dugsiyada hoose dhexe iyo sare iyo dugsiyada xanaanooyinka ee dalka usbuucanna waxaa la soo dhejin doonaa imtixaankii fasalka 12aad sanadkan waxaanu qorshaynay in la dhiso ilaa iyo in ku dhow 300 oo dugsi oo laga dhiso gobollada dalka ee kala duwan iyo dee sanadka 2025 oo 3000 oo macallin oo kale la qaadan doono taasoo ka dhigi doonta tirada macallimiinta dawladda 10000 oo macallin aad u mahadsantahay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Ustaad Faarax Sheekh Cabduqaadir ayuu ahaa oo ka warramay waxa wasaaraddu